عوض اللي دت كل دوان بعد الجن عد جارو شيئا كرتم يصير كي يقول ما شرته عوض اللي يدا دحدة حسابته بدون تمر كي كلا عتكاتي دت كلا حسابته بدونه مركا نك الدون يا إنه عوض وحوي يعني هذا وحيجا كسرعني أرتين نجا كلا بحينا عد كلا بيسوق قاعد ما يسان وأيام مسير كرير عوض عد جارو قادم كرته hogaamiyaha dhaqanka beelaha gobolada galbeedka Soomaaliland ugaas Cabdirashiid ugaas Doodi ma waxaad u taqaanaa nin qaran dumisa oo adiga kugu matala dhaqanka أنا waxaan u aqaanaa nin dadkiisii oo qarannimadan dhisay oo ku suntan isagu shakhsiyan uga raayi duwan sida hogaamiyahaaga dhaqanka ugu sareeyay nin ugu quudhaado waxaan ku ori dhaqankiisa wax ugu sareynaya u karaamo yeelanaya markuu aanu qaranka aan aaminsanahay ummadiisa Itoobiya joogta Soomaaliland bay joogta Jabuuti joogta markuu ummadiisa qadariyo oo qarannimadooda ku qadariyo soo qadarin yeelanaya way dadka reer haduu maanta la hadlado codka ka doonayso ninkii dhaqan ugu sareeyay dhagaha u furtaan ay madnaan ku soo diraan soo kuuma yaabal gudniga kaamir ridingaas hore ula hadlay dadka wuxuu ku macagay jiraan dad buu xukumaysan ugaaska sidee baad ugu adeegsan kartaa hadalka nin ugaas Cabdirashiid ugaas Doodi ugaas dama nabi baan ku sheegaa maxaan idhaahdaa duuna nin ahayn maxaan idhaahdaa waa mid kamid ah maxaan ku sheegaa bal adigu ii sheeg kuna maxay dadka dhaqanka la iskuma raacsan shalay aad raacsan waan raacsana laakiin waxaan ogahay inaan la isku raacsanin yaa diidan dad badan oo diidan baa jira eeg diiditaanka wixii lagu diidanaana u yimid xad uga jeeda wixii lagu diidanaa muna yimid maalintii dadkii lahaa war iskuma raacsanin soo maanta ma yimid inuu dadkaad matashay gobolkaaga ninka labaad ee dalkani ka yihi madaxweyne ku-xigeenka dalka ka yihi dalka ma waxoogay wada qaadanayaan Soomaaliland ilaa maalintii la asaasay ilaa maanta qasriga madaxtooyada kama bixin oo 8 sano madaxweynaha saddex iyo soddon ka sanay Soomaaliland jirto 8 sano madaxweynaha markaad ka jirto inta kale oo madaxweyne ku-xigeen reer awdala markaad Cabdinaasir xisbiyada maanta sharaxan ee talada dalka u sharaxana ku-xigeen bay ka wadayeen nin kale oo Soomaaliland kale yihi ku-xigeen kama aha soo codkoogu ma goyno codka gobolka maxaad kale la raadinaysaa marka kursiga dalka ugu sareeyay joogaanay wasiir digreeta madaxweyne markii la doono laga maarmi karo markii la doono la kordhin karo hadii maxaa kugu dhajiyay dadka ugu xoqaysa ma anu kuma xoqayo waa tabashada buura ma taalaan ku sheegaya dawladnimada ma taale waa lagu kala aragti duway waxa tiraahdaa mid ka turjumaysa cabashada anu waxaan aaminsanahay awdal waxa yaalo lagu kala raayi duwan inta mu'ayidka nooci in maanta feedback buura ma yaalay dadku dareenka ka qabaan dawladnimada dadku dareenka ka qabaan annaguna waxa kula wadaagaynaa kay naga qabaan inta mu'ayidka nooci waxay naga inta mu'ayidka nooyi waxay naga qabaan in dalka lagu baraaray xukuumadda in sida lagu ilaaliyo ay tahay waliba tiradeeda in laga sii yareeyo ay ku talinayaan yaa kula ogol saddexda wasaaradooda ugu weydsan Soomaaliland inay saddex nin oo raawada ku fadhiyaan yaa kula ogol waxaan kuu sheegaya sheegba nina qowyahanana waa tahay saxafina waa tahay wasiir wax dheeri ma jirto وسارد wax dheer waa isku miisaaniyada adeega bulshada kala duwan laakiin muhiimku waxa weey muxuu waa wasiir iyo wasiir wax kale oo ay isdheeriyeen ma jirto marka waxani waa sheekooyinka suuqa lagaga sheekeeyo wasaarad bu reer hebel haystaayo waxyaalaadkaas oo dadka oranaya madaxweynuhu isagoo ah kii ummadda wax u gacan soorayay ummadda cadaaladda ku waafajinaya dadka reer Soomaaliland inuu kasada wala saaro sidaa inuu qaybiya qaatay ka dhigay xukunkii oo yiri qaata maxay hayday qada adigu ma qabtaan sima qabto muxuu sameeyay bari sheegad ii tiri balada wuxuu sameeyay madaxweynuhu muxuu sameeyay dadku waxa ay soo bandhigaan oo ay madaxweynaha adigu wasiirkooda ay ku difaaca ku dhaleelayaan inuu dhowr iyo 3 digreeta gacantiisa deegaankiisa soo ku sameeyay taasi ma cadaalad baa dalka ugu yimid ugu yimid iyagoo la ugu yimid intaad adu leedahay inuu ugu yimid waliba uu kaaga kordhiyay inta imika aad dadka aad sheegaysaana ugu yimid madaxweynuhu in gaarana wax kama qaada in gaarana uma kordhiyo adigu deegaanka dishay 16 digreetay ku lahayn dalka maantana adiga iyo waxa ku soo ururtay wasiirku waxa barbar dhigtaa 47 wasiir bay haayeentii hore waxa barbar dhigtaa intaad ka heshay maantana waa imis dhowr iyo 20 wasiir bay markasta waxay ku sar go'an tahay xukuumadda tiradeeda marka adigu waxaad leedahay madaxweynuhu saxsan wala madaxweynaha kaliya ta xukuumadda ugu koobnayd ee dhisay ee kuna ilaaliyo waqtigeey ee aan dhag jala ku siinin waxa iyo waxa ka
axmed muumise oo ka tirsan muwaadin deegaankaas ka soo jeedo oo wasiirka markaa kulmiye uu soo bandhigay damaciisa iyo doonistiisa uuna diyaar garoobay lacagtii iyo wixii miisku la yimiday maxaa xaq ugu yahay kaasi masaga hamba masaga soo kamaanta halkii laga soo riyo soo kii halkii laga soo riyo soo kamaanta ku nool adeer dadka han kale ee mistaaqiyada leh ee siyaasadda leh ee fahan kale ee aan baahi siyaasadeed haynin noo sheeg qof aan qof jirinba haddaad tiraa hebel baa sidan ahaa gidaarada inta laga soo qaaday wax laga dhigay oo waxa weeyaan loo qaldamay dee noo tirinin dad caadiya noo tiri oo wax la weydiin karo talabaad ma dembiilayaal baabad ku leedahay qarankiiba haafa qaranku haaf ma qaranka kala go'aamiyo dambiga horta dalkaanad kala aqooni gobolka Laascaanood ama gobolka Sool imisa maqan ma taqaana horta inta maqan ma taqaana adigu gobolka Sool horta waa imisa deg horta waa imisa deg yo ma ahayn intee loo jiray dhageyso horta dhageyso maalintii ciidanku soo joogiyo yo intee loo jiray iska dhaaf waxaas laba degmo ma dhanna waxa maqan muwaadiniinteedii baana joogta intaana wad arki doontaa dalkana ilaa gobolka Sool dad matalayaal doorasho ku yimaadaan xisbiga gaarsiyo xukuumadda gaarsiiso waa naga halkaas taagan annaga inta ba sameeynay waxaan lagu wada meereysanayo dhan nin baa sameeyay ka banaanka jooga sheeganaya waxaan nagu keenu naga daba sheegtay hadii xisbigaagu uu doorashada ku guuleysan waayo وساد أدوك تعيشها هاي كلمية كم مقعابة وساد أدوك تعيشها هاي ودني بريكم وهذا الحمد لله ورتو عتر كلمية دي بكم مقعابة هذا الكوا كاهوري ودني كم مقعابة ودني كم مقعابة حال كاكور هذا الكاغو كاهوري وين ما حال كاكور وكلمية دي بكم مقعابة كدايو هذا الكاغو ورتو سمعتو هلا هلا وين توي هذه يدبا ما تد كور حال كاغو أنا ما والله إلهي برت دلك كونه مديبي ما بدعش وفيديو كادو ما بدعش تاريخ دون قليا انتهى ما dhacaysa inay dalkan qabtaan shacabka taageerayaasha iyo dadkii ka soo horjeeday in ka sii yihiin waloogiin kalsoonidan gaarkeen qabtaan doorashada ma ku shubanaysan kuma shubanayne waaba tii ugu xalaalsanayd ba dhacaysa laakiin waxaanu la tartamaynaa nu naqaanaa waa kow waa xisbigana shalay ka badinay waa laba waa qofkii shalay laga badiyay waa saddex waaba intaasoo dhibaatay maanta dalka ka geysteen oo huwa soo raaceen oo waxa weey dalkan argagixiso u horseedeen oo ina khaliifu keeneen oo khaayin wadana u keeneen oo ummadan hagardaamo weyn ay gaarsiiyeen intaasoo waxood baa dhacay shalay mabay dhicin bay intan mabay jirin waaba 7 sano dalkan hagardaamada u geysteen dadka qaar waxay leeyihiin madaxweynaha ragii dhisay maanta way ka soo horjeedaan ee madaxweynaha kursi ku fadhiisay kuwiina kuraasta ku fadhiya maanta madaxweynaha garab taagna uma goynaysaan baa la leeyahay kuwa aad sheegayso kulmiya dhisay waa kuwii kulmiya iyagu wax ku noqday weey nin kursi haystay oo lacag umada fasahaaduna lahayn iyo kursi waxa uu si awoodo gaar ah uga faa'iideystay aniga nin hayga dhigin ninka rag waa ninka halka intuu istaago ururkiisa la soo baxo ninka daba taga ma